goobtan aan ku suganahay Tele Information Center waa goobtii dheedabada loogu taagay kacdoonka soo horjeedka qabyaaladda muddahaatan laga joogo 2 sano ay taariikhdu ku beednay 17 bishii koobaad sanadii 2010 waxa maalintaas dhisay 15 dhalinyaro Soomaaliyeed oo ujeedadoodu ahayd inay asaasaan kacdoonka soo horjeedka qabyaaladda oo afka qalaadna loogu yaqaan anti-tribalism movement marka la soo gaabiyana ku magac dheer ATM ujeedada loo asaasay kacdoonka soo horjeedka qabyaaladda waxay ahayd in laga wacyigeliyo ummadda Soomaaliyeed cudurka dilaaga ah ee kala qaybiyay ee qabyaaladda ah haddaba sida aanu wada ognahayba qabyaaladdu waxay ummadda Soomaaliyeed ka gashay meelo kala duwan haday noqon lahayd siyaasadda xagga guurka iyo waliba nolol maalmeedka sanadka ugu horeeyay oo dhisnaa kacdoonka soo horjeedka qabyaaladda waxyaabihii u suurtagalay inaanu qabanno waxa kamid ah anagoo u booqanay meelo badan oo kamid ah magaalada London si aan uga wacyigelino bulshooyinka Soomaaliyeed cudurka dilaaga ee qabyaaladda intaas oo qurooga maana harin la dagaalanka qabyaaladda waxay noo suurtagashay inaanu booqanay magaalooyin badan oo kamid ah waddanka Ingiriiska iyo waliba wadamo badan oo kamid ah caalamka isla sanadkaas 2010 waxyaabaha aanu qabanay waxa kamid ah xaflad ballaaran oo aanu ku qabanay Hammersmith and Fulham Town Hall ee galbeedka magaalada London xafladaas oo lagu soo bandhigay khudbado waxaan ka codsanayaa inaad macnaha tiraahdo qabyaaladdu u fiiray ila tiraahdo aan idin sheegayaa macnaha ATM khayr Allah siiye nimanka dhalinyarada rajadayda kor u qaadeen afar ebershan hatta waxa laga xishooday af Soomaali in lagu yiraahdo qof barki markaas luqadda Ingiriiska la isticmaalayo 4.5 sababtu waxa weeye qof barki lama oran kara Cabdi Shariif barka la ima dhigi karo saa darteed war Ingiriiska ay ku fiican tahay intaan Ingiriiska fahmaynan ku xadnay oo qabiilka jecel 4.5 wax lagu qaybsado dawladii bilaababa waxa balada ugu wacan barakada u weyda waa 0.5 ke bulshada ayelina waa qabiil hogan oo bahabahayo biif baaf la mariyo laynagu bahdilaya bulshada ayelina tiitiin la beeriyo baxdin weeye nabaro aan abad bagsoonayn bulshada ayelina boqolow gudiyadiyo bilixdu ka siman yahay ninna isaga oo bara boqorkeen ma hubine bulshada ayelina bal ma waxa aragtay nin isagoo bara ifka ku soo baxay ma jiraan leedahay marka halka markaan marayaan waxaan xusayaa marka dadka la leeyahay waa 4.5 ka shakhsiyaadkan marka ka xusuustaan bina halka ku xisay oo ahay baraga Bahri Sheekh Aweyski dadka diinta bari jiray waa ninkii macnaha diinta iyo soo gaarsiiyay gobolada Banaadir iyo waxa dhan Bahri Sheekh Aweyski dadka diinta bari jiray balse qaawadiinkii bahooska la noo dhigay ma barba ma buuxa mise waa boqolow dadku baana dheeriya ninkii quraanka na baray ninkii halka mana keenay waa bar weeyaan leena anagu dhiigi kanay isaad moosul waa maayo SYL ragi bilay bahda Qaasim Iluliyo Ahmed Naajid Baaqi professor Dalxo kale ma barba ma buuxaan mise waa boqolow dadku baana dheeriyahay waa baaq dadweyno waa badbaadadeena 4.5 gabayo iyo waliba riwaayad looga hadlayo xumaatada ay leedahay qabyaaladdu sanadkii ugu horeeyay oo dhisnaa kacdoonka soo horjeedka qabyaaladda waxa inta badan xoog aan u saarnay sidaan ugu wacyigelin bulshooyinka Soomaaliyeed qabyaaladda iyo dhibaatada ay leedahay sanadkii labaad waxaanu gacan ka geysanay Gift of Education oo ah barnaamij ay wadaan United Somali Student oo loogu talagalay ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadaha ka dhigta gudaha waddankii walaal UK Somali Student nahay waa ku maadsanta horta ATM maanta dadka lacagta u aruurisay dhalinyarada Soomaaliya ku dhibaataysan oo waxbarashada loo furayo waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa inay ka qayb qaataan oo waddanka ay wax u diraan oo sanadkani labaad waxay noo suurtagashay inaanu ka qayb qaadano gurmadka loogu talagalay abaaraha ka socda gudaha dalka Soomaaliya halkaas oo ay dad badan oo Soomaaliyeed dhibaato ka soo gaartay crisis that prompted Adam to come to Mogadishu. Back in the UK, he's founder and director of the Anti-Tribalism Movement, an organisation that advocates peace in Somalia and an end to inter-ethnic conflict. To provide food aid for the drought victims, the group's members raised £15,000. That's more than $23,000. To ensure it reached those who needed it most, Adam travelled to Somalia to oversee the distribution himself. waa hubaal inaad intiina badan isweydiinaysaan muxuu yahay qorshaha sanadkan cusub
waxaa haatan socdo qoraal la qorayo buugaas oo ka hadli doona qabyaalada xumaatada ay leedahay iyo dhibaatada ay u geysatay bulshooyinka Soomaaliyeed isla markaa anagoo la xiriirnay nidaamyada waxbarasho kala duwan ee ka jira geyiga Soomaaliyeed si aan uga mid dhigno buugaas inuu ka mid noqdo heerarka waxbarasho kala duwan ugu dambeyntii sidaan wada ogsoonahay far kaliya fool ma dhaqdo haddaba waxaan u baahanahay waa taageeradiina sidii aan u ciribtiri lahayn qabyaaladaas oo dileetay muddo haatan ka badan 20 sano bulshooyinka Soomaaliyeed iyo waliba inaanu isgarab istaagno sidii aan u dhisi lahayn wadankeena waxaan idinkaga tagayaa fariintan oo ah qabyaalada maya qoriga maya qalinka ha qarannimo ha iyo ummadda Soomaaliyeed oo sanadkan sanadkiisa nabad ku waarta insha Allah